بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان الكريم الوين يمضن يا المال ولبوا الجوكتان كسو دوادا وركة تي في الرويال وفافاسن وحنا حلقان إذا كجا إيمانا يا استوديوها قلبيت كمجالة لندن يا دلك بريطان وحنا وديارة وركة إنه دلس عدسي يعني محمد عبد علي ضاعت أفيانك عيدا مضى عميصام كورنيل علي آدم محمد أياشر جرائد مانتا كقبتي مجالة مقدشة وحنا كجها لي حالة أمانة جودها دلك الصومالية وحنا شيء إن حلقان تاي حالة دلك الصومالية متأدوها جاكسر إسلام مركان عيدا مضى عميصام كوضان هولا وناكسن ففاينت وركاسي وحا مجالة مقدشة إنه قصو دري أويس محمود جلعو كورنيل علي آدن محمد أفيانك ciidamada AMISOM oo maanta warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa uu ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Beledweyne, Jowhar iyo Marka oo dhamaantood ka mid ah meelaha ay joogaan ciidamada AMISOM waxaana sheegay in dhamaanba magaalooyinkaasi waqtigan xaaladooda ammaan ay tahay mid aad u sareyso. Afayeenka ciidamada AMISOM waxa uu sheegay in Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen falal amni daro qaarkoodna lagu weeraray muwaadiniin u dhalatay dalka Turkiga xiisada ka taagan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ku guuleysteen xalintooda ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM. waxaa sidoo kale afayeenka ciidamada AMISOM shirkiisa jaraa'id uu ku soo hadal qaaday mid ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne oo dhawaan kooxo weesan halkaas ay ku doogteen. horta soo dhawaada marka hore waxaan si kooban aan miigu sheegay waxaan jecelahay inaan ka hadlo saaka xaaladda Muqdisho iyo wax arrimo kale oo ka hadlay sida ogtihiin ba horta nabadi waa jirtaa meel badan oo Soomaalidu ku sugan tahay waa nabad walaal ka xunnahay bishii 28 iyo arrinkii dhacay ee ku saabsanaa Turkida in la tuuro oo qarax loo geysto AMISOM markaas waxay jeceshahay hadaba inay horta tacsiyad uga gudbiso wana ka xuntaa waxa dhacay AMISOM markaas waxay isku day doontaa sida ay ula shaqeyn lahayd dawladda ciidamadeeda nabad sugidda marka la eego shaqooyinka noo socda ee wadajir aan u wadno dhammaan magaalooyinka aan ku sugannahay iyo inta kale aan mas'uul ka nahay sidii mar dhawaan ay amuruhu ka dhaceen hadday tahay Jowhar magaalada Jowhar AMISOM way la dadaashay halkaasi nabadgelyadeedii siday ciidamada dawladda federaalka ay ula qaban lahayd halkaana waxaan kula kulannay ku badan iyo rasaas lagu qabtay marka iyadana nabadgelyadeedu waxa ku timid markii lagu dadaalay dawladda federaalka iyo AMISOM ay ku dadaaleen in dadkii halka isku khilaafsanaa ay isku keentay ay wada hadal arrinkooda ku dhameeyeen waatu iyaduna faa'iidadeedii wixii dad ku dhibaatooday halka iyo kana sidii aan u daweyn lahayn ee loo soo gaarsiin lahaa halkan waa lagu jiraa waa la keenay intii wax lala qaban kariyay iyo dawadii loo qaban kariyay wali wala jiraa waxaan jecelahay sekretarka labaad inaan u gudbo sekretarka labaad waxa weeyaan Jubbooyinka hoos marka loo tago Kismaayo la tago iyaduna nabadu way jirtaa way dhaantaa dhibaatooyin mar dhawaan ka dhaca jiray imikana xaaladda guud way fiicantahay. Korneyl Cali Aadan Maxamuud afayeenka ciidamada AMISOM aan weydiiyay sida ay ciidamada AMISOM waxyeelo ugu soo gaartay qaraxyo isxigxigay oo dhawaan lagu weeraray ciidamada AMISOM ee ku sugnaa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Anaa ku sheegay qaraxii u dambeeyay waxaan u maleynayaa dhibaatadu wax lagu faanan ma laakiin waxaad jeceshiin inaad dhibtana gaadhay inaad ogaatiin anagu waanu nimid dhiig daata iyo dhimasho si ay Soomaalidu nabadoodo taa waa inaad ogaatiin marka waxbaa dhintay iyo waxbaa jajabay xaqeega ceeb maaha waa sharaf meesha dhigtaa
maxaa marka ka dhacay haddaad leedahay marka waxaa ka dhacay gaari baa la qarxiyey oo ID loo dhigay tikada askari baa ku dhibaatooday askariga lugu ka dhibaatooday dhakhtarkana waa ku jira Allah shaafiyo hadalka afayeenka ciidamada amisom ee ku aadan in xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ay tahay waqtigan mid hagaagsan waxay ku soo beegmay xilli inta lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ee magaalada caasimadda waa Soomaaliya Muqdisho ay ka dhaceen ku dhawaad 10 qarax kuwaas oo qaarkood loola eeganay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxay ka soo gaartay dad rayid ah iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya Aweys Maxamuud Jilco Royal TV Muqdisho